khatar bay ku jiraan dadkii khatar bay ku jiraan baadiyihii burbur buu ku jiraa ilaahayow roob degdega baan ku baryaynaa yaa rabbi waan soomannahay bishii rabadaan baanu ku jirnaa adaa rabbiga yagiya adaa boqorka yagiya adaan gacanta kuu dhigannay ilaahu subxaanak ilaahu noo gargaar ilaahu noo gargaar allaahuma aqithnaa allaahuma aqithnaa allaahuma aqithnaa ilaahu noo gargaar ilaahu hay-adaha gaalada ilaahu ha noo baahinin ilaahu gaalaha noo baahinin daruur timaadda inooga fiican ilaahu noo gargaar laga soo bilowdo raas gambooni ilaa low yacdi waa abaar ilaahu abaarta naga korqaad ilaahu barwaaqo noogu bedel ilaahu hantida iyadu waa xoolaha ilaahu noo ilaali intaa kelimadaasaan odhan lahaa maadaama aan galayno tobankii dambe wakhti tahajud ah la galayo hadalka badanna uun fiicnayn kelimo kooban baan waxaan u soo jeedinayaa nimankaa hadda la doortay oo la yidhahdo baarlamaanka anoon sii dhex gelaynin sia loo doortay iyo say ahayd waxay ku fiicnayd rabadaan anoon soomanayn bay ku fiicnayd inaa waxoogaa kelimo ka idhaahdo waana dhici kartaa bacda rabadaan hadday arrintu gaadho wayna u dhowdahay inaa mar labaad ku soo rogaado insha allah hadday noloshu dheeraato ilaahay baan baryaynaa subxaanahu wa tacaala qoladaa baarlamaanka oo daa'yarta ah oo odayaashu ku yar yihiin waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada ilaahay ka baqa soomaali baa si dooni aad ku timaadaan qabaa'il baad ka timaadeen qaabkaa dooni aad ku timaadaan waxaan inii dardaarmay taqwada ilaahay dad muslimiinaad tihiin anugu waxaan taqaadsanahay inaad ka mid tihiin bulshada soomaaliyeed ee muslimka ah oo in caasi ah oo cusyaanku ku badan yahay iyo in ilaahay ka baqda ay ku jiraan inaad ka mid tihiin marka waxaan nagula talin lahaa waa dhaarateen badankiinni waa dhaarateen waxaad ku dhaarateen kitaabkii ilaahay subxaanahu wa tacaala gacantaad saarteen horta xujo ka weyn ama dembi ka weyn ood gali kartaan markaad kitaabkaa khilaaftaan ma jiro marka waxaad ka timaadeen dowlad goboleedo laba shayba iska ilaaliya qabyaalad iska ilaaliya inaad wax ku doorataan waxaa kalooad iska ilaalisaan gobol tacasubkiinna iska ilaaliya dadkii ini keenay ama ini soo doortay ama waxay deeneen lanagu keeno maanta waa ka madax furantihiin madaxweynuhu waa bannaan yahay ninna ma taqaanaan aan ilaahay ahayn subxaanahu wa tacaala marka soomaalina maanta waad u jeedaan abaar baa haysa faqri baa haya kala tag baa haya cudurkii tiibeyga hayo oo qabyaalada oo dadka kala kaxaynaya haya qaxootiyaal baa xerooyin ka buuxa maanta caalamka islaamiga ah marka waxa la miisaalinayo waxa la yidhaahdaa sida soomaali baad rabtaan inaad tafaraaruqdaan ood kala tagtaadaan oo baaba'daan marka ayaanan odhanin oo waa kelimood soomaalida laakiin tidhaahda waxay tidhahdaan wixii xunba xaawaale wixii xunba hadda soomaali baa leh waxaa loo baahan yahay maanta ninka madaxweyneha imanaya ilaahay waa doortay ilaahay subxaanahu waxaan u jeedaa qadiya qadarkiisaa ku dhaco waa dooran yahay saasaan u jeedaa marka isagoo sidaasa haddana innaga waxa layna amray qadiya qadarka daniishan mayne inaan shaqayno waxa hortaada yaal marka maanta dadna waa ku soo doorteen dad baa ku keenay hortaan waxaan igula talin lahaa laaluushka iska daaya waa laaluushka iska daaya laaluushku waa ka adduunka gubaya waa ka keenaya ninaan meeshan u suubanayn marka laaluushka iska daaya waxaad ilaalisaan soomaalinimada wadajirka soomaaliyeed waxaad ilaalisaan qarannimada soomaaliyeed ilaaliya malaha kama liidataan baan u malayn swal nimankii dhallinyarada 13 ahaa kama liidataan baan u malayn war badanna waad haysaan waddanka soomaali la yidhaahdo waxyaalaha ilaahay ku fakiyey jihaadkii sayid moxamed iyo daraawiishtii iyo dadkii kale ee soomaalida ahay oo iyaguna ka duwanaa jihaadkii ay galeen ee gaalada la galeen baa ilaahay nagu badbaadiyey dowladii uma dhalanin daraawiishta laakiin sumco fiican iyo camal wanaagsan iyo dowladdii soomaaliya dhalatay daraawiish baa dhalis 17 lagula swal waxa ku maaragtay ku soo maaxay jihaadkii sayid moxamed raxmatullaahi calayh
marka maanta wax laynaga rabaa dowlad goboleedna ha fiirinina qabyaaladna ha fiirinina maanta ayaa Soomaali u suuban shar baa kala dooranaynaa bacdu sharri ahwanu min bacdin ayaa ugu shar yar ayaa wax ugu qabasho badan ayaa u suubada taasale halkaas ay arrintu taagan tahay marka gacantiina maanta waxa ku jira bacdallah ninka la dooranayo Soomaali marka god ha ku ridina Soomaali ha halaagina idinkuna waa dhaarateen halaagsanima halaag soo dejinina inuu TB inagu dhacdo inuu kasar inagu dhaco inaad beenalayaal noqotaan inaad Ilaahay ka goosataan nimanka murashaxiinta ee dhan oo dhamaana muxaafidka ka mucaaridka ninna ha fiirinina sida u dhaxwareega ayaa wax qabad leh ayaa maaragtay maxaan ku raadaay shafaafiyadiisu badan tahay ayaan maaragtay maxaan ku raadaay wadanka ka ilaaliyo toogta ama ka ilaalini cadawga dibadda kaga imanaya sida duwal baa waxa jira hadda inay liqaan horta qaacido guud dawlad arabin Soomaaliya tan aan kala hayni ma jirto miday dooni ha ahaato ama muslima ha ahaato ama gaal ha ahaato waxa weeye nin kasta danbu kugu wataa laakiin waa la isdhaamaa qola waxay rabtaa inay siday doonaan ku galaan marka dambana masaajidda inta u soo daataan inay culumada laayaan ee dadka laayaan soo garan maysa dawladaha qaarkood waxa suuroon wartin dan ka leeyihiin laakiin dantoodu ka fududahay ala kulli xaal waxa hadalka ku soo koobaya ilaahina ka cabsada maantana madaxweynuhu idinku gacantiina ku jira Soomaali god ha ku ridina u gargaara Soomaali u gargaara qarannimada wada jirka Soomaaliyeed soo dhulka Soomaaliyeed Soomaali hore loo qaybsaday inta hadhay balbadbaadiya maxaa yeelay dhul inaan yeelano oo ku tukanno oo dacwada ku faafino oo Ilaahay ku caabudno waxay ka mid tahay kasbi ama maaragtay maxaan ku raaday waa diini وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين